بسم الله الرحمن الرحيم. وزير هذا حكومة صاحبة أنا هالكان جوجا وزير كريمة جودها وزير كأمنية وزير الدولة كريمة الدبدة لا تليها أمنية قرنكا لما أنت ليها شال كان جوجا تليها بوليسكو وهريو وأمباسدور هذا head of mission إسكال كان فدية لما كسوق الجرياشة مناسبة دان مانتي صباح وناكسن mudanayaal iyo marwooyin iyo dhammaan marti sharafta kulankan joogta waxaan idin leenahay soo dhawaada sharaf iyo maamuus weyn ayay noo tahay inaan intugu soo dhaweyno kulankan furitaanka initiative-kan cusub ee guddiga difaaca kaasoo astaan u ah tallaabo taariikhi ah oo ay Soomaaliya u qaadayso xoojinta hanaanka hogaaminta difaaca koruqaadida isku duwidda hay'adaha amniga oo halkaan maanta ay wada fadhiyaan iyo midaynta jihada istiraatiijiga ah ee howlgallada dib u habeynta hay'adaha iyo go'aanada hogaamineed ee heer qaran kasoo qaybgalkiinu maanta wuxuu muujinayaa ballanqaad iyo commitment wadajir ah oo ku saleysan iskaashi kalsooni iyo taageero joogto ah oo lagu garab istaagayo dawladda federaalka Soomaaliya si ay si buuxda ula wareegto mas'uuliyadda amniga qarankeeda ugana shaqeyso nabad iyo xasilooni waarta oo ka hana qaada dalka iyo guud ahaan gobolka furitaanka maanta wuxuu calaamad u yahay dhismaha madal istiraatiiji ah oo ay hogaaminayso wasaaradda gaashaandhigu looguna talagalay in lagu abuuro isku xirnaan lagana fogaado kala daadsanaan iyo isbarbaryaac lana sugo in dadaalada difaaca lagu hago jihayn cad yool isku mid ah oo mudnaanta siinaysa meelaha baahidu ugu daran tahay guddigan difaacu wuxuu noqon doonaa habka istiraatiijiga ee heerka sare ee lagu mideynayo yoolalka howlgallada mudnaanta dib u habeynta hay'adaha iyo go'aanada hogaamineed ee saameynta ku leh amniga qaranka si loo xaqiijiyo wax ku oolnimo isla xisaabtan iyo hufnaan madashani waxay ku dhisan tahay asaaskii uu dhigay qorshaha horumarinta amniga qaranka SSDB iyo geedi socodka dib u habeynta wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya guddigani wuxuu hubin doonaa in nidaamkeena difaac uu noqdo mid isku dhafan si wanaagsan la isku duway isla markaana si buuxda ula jaan qaadaya istiraatiijiyadda qaranka haddaba anigoo taas ka duulaya waxaan jeclaan lahaa inaan iftiimiyo 3 qodob oo asaasi ah oo hagaya doodeena maanta isla markaana jihayn doona shaqada guddiga bilaha soo socda qodobka koowaad wax ku oolnimada howlgallada waxaan halkaan ka bogaadinayaa guulaha muuqda ee ay gaareen ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyagoo kaashanaya ciidamada EUSOM iyo saaxiibada caalamka guulahan waxay ka turjumayaan kororka awoodda kalsoonida sii xoogaysanaysa iyo go'aanka adeeg ee ciidanka qaranka Soomaaliya ay ku gaareen difaacidda dalka iyo badbaadinta shacabka waxaan si gaar ah u maamuusaynaa u xusuusanaynaa u haynaa qadarin nafurnimada geesiyaasha ragga iyo haweenka ku labisan dareyska ciidanka iyo dhammaan saaxiibadana garab istaagay ee naftooda ku waayay waxaan tacsi tiiraanyale u diraynaa qoysaska iyo dalalka ay ka soo jeedaan halyeeyada naftooda u huray dadaalada wadajirka ah ee lagula dirirayo argagixisada laguna xasilinayo Soomaaliya inkastoo horumarka howlgalladu u muuqdo haddana guul waarta laguma gaari karo la'aanteed isku duwid adag qorsheyn nidaamsan iyo hoggaan midaysan
guddiga fulinta iyo xarunta isku duwidda howlgallada joog waxay goordhowna siin doonaan warbixin faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda howlgallada iyo guulihii la gaaray. qodobka labaad, horumarinta awoodda ciidanka. amniga mustaqbalka Soomaaliya laguma qeexi doono oo kaliya natiijooyinka dagaalka, balse waxaa lagu cabiri doonaa tayada, xirfadda, joogteynta iyo awoodda dhaqaale ee ciidanka qaranka. ajandaha dib u habeynta oo ay ka mid yihiin horumarinta hay-adaha, isla xisaabtanka iyo kormeerka, dhismaha ciidanka, tababarada iyo habraacyada iyo maareynta kheyraadka wuxuu dabdhexaad u yahay yoolkan. waa in aan si wada jira u buuxinno gaabiska awoodaha muhiimka ah, annagoo hubinayna in maalgelinta la heli karo ay mudnaan siiso baahiyada degdega ah ee howlgallada, isla markaana taageerto horumarinta muddada dheer ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. guddiga difaaca wuxuu noqon doonaa madal isku xirta kooxaha farsamada iyo barnaamijyada dib u habeynta, iyadoo loo marayo jihayn istiraatiiji ah iyo kormeer hogaamineed oo heer sare ah si loo xaqiijiyo iswaafajin buuxda oo u dhexeeya qorsheynta, maalgelinta iyo fulinta. qodobka saddexaad, kala guurka istiraatiijiga iyo iskaashiga. waqtiga kala guurka, Soomaaliya waxay haatan galaysaa marxalad go'aan qaadasho oo xasaasi ah oo ku saabsan kala guurka amniga. dowladda federaalka Soomaaliya waxay si tartiiba ula wareegaysaa mas-uuliyad ballaaran, ma aha oo keliya howlgallada amniga, balse sidoo kale howlaha taageerada oo muddo dheer ay bixin jireen saaxiibada caalamka. iyadoo taas la tixgelinayo, wasaaradda gaashaandhigu waxay sii wadi doontaa la shaqaynta hay-adaha kale ee federaalka, midowda Afrika iyo saaxiibada caalamka si loo hirgeliyo SSDP iyo qorshaha howlgallada EUSOM si waafaqsan aragti midaysan iyo mas-uuliyad wada jira. saaxiibayaal, furitaanka guddigan difaaca maanta waa in loo arkaa fursad lagu dhisayo aragti istiraatiiji ah oo wadaag ah, lana dejiyo jihada mustaqbalka ee kulamada guddiga si ay diiradda u saaraan natiijooyin la taaban karo oo saameyn ku leh amniga qaranka. mustaqbalka kulamada guddigan wuxuu noqon doonaa kuwa si gaar ah u bartilmaameedsada awoodaha mudnaanta leh iyo heerarka dib u habeynta, iyagoo si qoto dheer cad oo nidaamsan u wajihi doona arrimahaas. saaxiibadeena sharafta leh ee maanta har nala jooga halkan, waxaan idiin muujinaynaa mahadnaq iyo qadarin ballaaran anigoo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliya. taageeradiinu waxay door lama huraan ka qaadanaysaa marxaladdan kala guurka ah, waxayna keentay amniga iyo horumarka la gaaray ayay qayb ka ahayd. waxaa naga go-an inaan xoojinno iskaashiga, kor u qaadno isku duwidda dhammaan heerarka kala duwan, waxaana guddiga difaacu u yahay madasha ugu habboon ee taas lagu gaari karo. ka hor intaanan u gudbin ansixinta ajandaha kulanka, waxaan jeclaan lahaa, laakiin hadda aan nala joogin, inaan u mahadceliyo taliyihii xilka ka wareegaya ee ciidanka xoogga dalka oo ahayd inuu nala joogo halkan, qorshuun ahaa oo runtii qayb ka ahaa guddigan difaaca ee aan maantay halkan ku yegleelayno muddada 6 bilood oo u dambeysana aan ka wada shaqaynayno. runtii waxaan u soo jeedinayaa, waa bogaadinayaa dadaalkiisa iyo hogaamintiisa ciidanka, iyo maanta inuu uga tegayo meel ciidankeennii oo guul maalinba maalinka ka dambeysa ku tallaabsanaya. laakiin isbeddelku uu yahay sunno in shaqada, waxaana rajaynaynaa taliyaha cusub annagoo u hambalyeynayna in uu meeshii uu ka waday uu horay ugu sii wado.
haddaba waxaan rabaa maadaama hadal yar oo kooban uu lahaa taliyuhu uusan hadda nala joogin laakiin dib ka imaan doono waxaan rabaa inaan ajandaha aan wada ansixino kadib si aan u guda galno qaybaha kale ajandaha marka waxaan u maleynayaa ajanduhu inaad aragteen oo caadi ah sidaas awgeed ajanduhu waa noo ansax